waxaan rajaynayaa inay gaari doonto fariintayda reer Jalalaqsi inay gaari doonto ayaan rajaynayaa sida gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere ama taliye Nuur Dheere Nuur Dheere waan amaanayaa shaqada weyn ee wanaagsan ee xigmadda ku dheehan tahay la taliyayaal raadinna ay ku dheehan tahay ee aad degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan aad ka wado waan kugu bogaadinayaa sida bulshada aad ula falgalayso bulshada aad ula talinaysana ama aad ula tala wadaagaysana waan kugu hambalyeynaya waana kugu bogaadinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yiri washaawirhum fil amri haddii tala lagu dhiibo talada kuwa aad talada u hayso talada kala wadaag saan say ku habboon tahay dheh ha noqonin waaye dictatoriya ama ha isticmaalin nidaamka dictatoriyada Nuur Dheere sharafi karaamo waa halkaan aan ka salaamayaa nidaamka aad ku leedahay galbeedka laga soo rarayaa oo muxuu ahay bariya loo rarayaana maamulka ama muxuu ahay xarumaha maamulka degmadan halkaas loo raray aad leedahana waa mid bogaadin mudan dadkan galbeedka hadii nidaamkooda iyo amnigooda ay ilaalsan waayeen waa in bari loo raraa si degmada ay u hesho xasilooni iyo muxuu ahay barwaaqana ay u gaarto si degmadu ay u noqoto degmo xasiloon degmo nabdoon waa in la helaa dadka aad ka talagelinaysana waa dadka kula joogo ee degmada aad adigu maamusho dadku waxay yihiin dad deegaan ah ee dad kooyta ay yihiin dadka deegaanka hadii aan halkaas kaaga sheego 3 qolaa deegaan ku ah degmada Jalalaqsi sida anigu cibradeeda iyo fikirkayga uu yahay leeguna nacaynin leeguna taageeraynin meeshaas xawaadle ayaa deegaan ku ah baadacade ayaa deegaan ku ah eeylo ayaa deegaan ku ah inta kale hadii aad magacyadooda dib u baarto mudane gudoomiye waa shuraako ama shirkado la sameeyay waay sidaas si la mid ah eeylo deegaankaas amnigiisa wuu ka shaqeynaa wayna ka shaqeynay wayna kuula garab gale eeylo gacan midig ku fiiri gacan bidix ku fiirinin gacan bidixaynta ka jooji eeylo ee degmada kuugala nool gudoomiye hadii amni iyo istiqraar degmada loo rabo iyadoon dagaalamin eeylo ducadeeda iyo habaarkeedaaba muxuu ahay adiga dhan ku kala geynaya ama ku kala farootinaya dhaxla eeylo gudoomiye Nuur Dheerow dadka aad ka tala wadaagayso dadka degmada kuula degan waay laakiin dadna waa deegaan dadna waa kooyto waa wax keensato ama ganacsi ay ku yimaadeen ama caani keenan ama waxbay keenan degmada waa degmo marka aan leesla lahayn 3 qolaa maamulka ugu sarreeysa lahaan karto waa xawaadle ee muxuu ahay baadacade iyo eeylo kuwa hoos yimaado jareeraan nahay ku yiraahdo hadaad asalkooda dib u baarto asalkooda eeylo gala Nuur Dheerow ad waa ogtahay lagu sheegi maayo sidaas si la mid ah degmada Jalalaqsi hadii istiqraarkeeda iyo nabdoonteeda meesha hadda aad ka soo rarayso maamulka degmada aad ka soo rarayso bari u soo rarayso hadii aad kala talisay arintaasi waxa ku dhiman tala waa tii Ilaahay waxa ku dhiman inaad kala tashato odayaasha dhaqanka beesha eeylo inaad mar aad la fariisato kana weydiiso deegaanka siday u ahaayeen siday u joogeen lagu sheegi ma nin dal yaqaan oo dadka yaqaana tahay ani ku sheegi maayo meeshaas sida loo dego waa taqaana marka dadaan degin inay yiraahdaan waa soo dhaweynina Nuur Dheere saan waa niman ku furi doonin iyo ku rarinay dhaxdaa deegaankaas xawaadle iyo baadacade iyo waxa loogu yimid eeylo aad degana iskala ilaa iyo waa taqaana ku sheegi maayo deegaanka nabadiisa ka shaqeey mudane Nuur Dheerow kala geyn kuguma ogeyn dadeed kuguma ogeyn deegaankaas Jalalaqsi adiga